maantay inaan soo gabagabeynay sidaan horeyba idinkaga ballan qaadnay maalintii finaalka ahayd koobkii Ramadaanka oo inoo socday bishii Ramadaan oo dhan oo inoo soo dhamaaday usbuucii hore la soo dhaafay sidaan idin ballan qaadnayba waxay ahayd inaan munaasabad yar oo kooban inaan u qabanno dhalinyarada oo munaasabadaasi oo loogu magac daray qof kasta oo dhalinyaro ah oo koobka ka qayb qaatay wuxuu abaal mutaystay iyo darajo u mutaystay inaan muujino oo aan qulubta dadka reer Faransiis ama Soomaalida Faransiiska degan aan u sheegno ninka dhalinyarada sumcadiisa sharaftiisa akhlaaqdiisa waxa kaliya oo ummadda Soomaaliyeed isku dhaxgali karto oo midnimadeedii iyo shakhsiyadeedii lagu soo celin karo waxa waa sports dhalinyarada sportska oo dhalinyarada ah sidaad ogtihiinba Soomaalidu boqolkiiba 75 waa dhalinyaro waxa annaga naga go'an dhalinyarada boqolkiiba 75 sidaan uga mira dhalin lahayn meel kasta ay joogaan inaan ka soo helno intooda ugu fiican aan tusno shacabka Soomaaliyeed mid kastoo dhalinyaro oo wanaagsan inaan dhahno hebel waa nin mutaystay wanaag hebel waa nin mutaystay kana xunna aan gacan isaga qabanno uusan namatalin maanta waxa annaga halkaas ku keenay qabiil maaha eex ma aha laba qof oo maanta istaqaan male laba qof oo maalintii Paris maalaysa isgaranaysa male waxa isu keenay waa midnimo Soomaaliyeed waxa isu keenay waa shakhsiyad Soomaaliyeed waxa isu keenay waa waanin waxaan rabnaa inaan midaas muujino oo weyneyno insha Allah biidhnilaahi tacaala waxaan rabaa inaan aad iyo aad idinkaga mahadceliyo sidii quruxda badnayd oo sharafta lahayd oo karaamada lahayd oo aad nagu ixtiraamteen inuu koobku socday oo bilaa qayla oo bilaa buuqa waxaan u mahadcelinayaa si gaar ugu mahadcelinayaa walaalkay Xuseen oo isaguna ahaa ninkii ugu fiicnaa oo shakhsigii maantay si zero ka soo bilaabay oo juhdi geliyay inuu dhalinyarada isu keeno oo cadaalad u sameeyo walaalkay Albi Tarihi aad u sharafta badnaa oo isaguna isku dayay boqolkiiba boqol inuu dhalinyarada cadaalad u sameeyo دايره بدل قاعدنا عندك عبد دايره قاعدنا شغال قبل كسو wareegay xig baan bilaabay محمد علي يرجع بيبا ليرا وحياه dambaysan aqoon ragaas ilaa meeriga tagay heer nimanka soo mareen garoonka markay tagaan laga soo buriyay eelia ma haysatay taabka haysatay saacadayni bookin هذا الحمد لله ايش عمرك كل شيء مع الحياه كورنف رونك واسك فري marka Francis badan xeer badan oo Soomaali Ibraahim ah waxa uu leenayeen Suuriya in la aado oo soo bedel wasi sharmaarkeeyo marka hadda waxa la horta magaalada ganacsiga yeelatay wadamada oo Yurubta kalena waa aragtay hadda waxa lagu dheelaa ganacsatada waxay maal geliyaan dhalinyarada sports oo waxay funaanadooda kale xayisiiyaan ganacsatada Paris waxa laga rabaa inay koox samaystaan maqaayadahan kale koox samaysto maqaayadaha kale koox samaystaan dukaamada telefoonada koox samaystaan oo dhalinyarada ay u iibiyaan agabka sports oo dhan oo ay ku isku xayisiiyaan funaanadooda oo si macnaheedu ay dhalinyarada xafladooda saar oo kale ana ganacsato ka qaadato sida kuwa luuliyo iyo talaafin ku waxa badan oo laga wada hadlay marka waxa la yimid rag badan Xuseen rag badan Xasan Daag iyo Anas ay ku jiraan Ibraahim iyo waan isla qabaqaami jirtay waana dhici jirtay dad official noo imaan jireen haddana waa ka sii badannahay waa ka tayo badannahay waa iskaga Paris iyo Francis gabi ahaanba waxaan rajaynaynaa inaan ay wada yimaadaan ay ka soo qayb galaan xafladda waxaan qaban doonaa haddii la yiraahdo lagu xusaayo 26 iyo 1 Luulyo lagu xusaayo waxaan qaban doonaa 6 bisha toddobaad haddii la yiraahdo waa maalin sabti ah waxaan ku qaban doonaa Bondi waa 15 daqiiqo gaarjinood meel u jirta tareenka waxa la raacayaa ooga insha Allah waxaan bilaabaynaa haddii la yiraahdo 8 habeenimo ilaa aroorti waxaan ugu talagalnay dhalinyarta haddii ay yihiin dhalinyaro sports haddii ay yihiin shacab weynaha kale oo ummadda Soomaaliyeed in ay gidi ka soo wada qayb galaan wixii hiid iyo hoo ah iyo wixii ka qayb qaadasho ah idinkum bay xafladii diinta qof khaas oo maahan qof khaasana ma lahan waa maalin ummadda Soomaaliyeed kuuda weyn qoomiyadna inta ay dhaqankeeda iyo ay sistemyadeeda ay muujinayso ay sii jirtaa laakiin haddii marba meesha ay ka baxaan
waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada kusoo qayb gashay dhammaantood iyo intii ka qayb qaadatay koobka intuu socday koobka ramadaanka intii ka soo shaqaysay ka guddi ahaan ka dhalinyaro ahaan cid walba oo horka geysatay oo u mahadcelinaynaa maadaama ay iclaamiyeen in maanta isugu nimaadno intaasoo qof oo ay u noqoto muhiim inaan isugu nimaadno arrintaas waxa weeye waxaan bilaabi doonaa qiimayntii koobka waxa weeye shakhsiyaadka ugu wanaagsanaa qofkii ugu akhlaaqda fiicnaa ninkii ugu laacibsanaa intii koobka socday kabtankii ugu fiicnaa dada noocaas rabnaa inaan bixino waxaan ku codsanaa qof walba markaan magaciisa yeelno inuu goobta loogu yimaado isla markaana aan biladiisa guddoonsiino saasaan rajeynaa insha allah ugu wanaagsanaa ugu akhlaaqda fiicnaa akhlaaqdana waxay ka mid tahay qofka bini aadamka waxyaalaha lagu qiimeeyo ayay shayga koowaad ka tahay wuxuuna ka mid ahaa kooxda la magac baxday FC Boosaaso waana kabtankii FC Boosaaso waxaa la yidhaahdaa Maxamuud Mire waxaan u garanay biladaan inuu guddoonsiyo walaalkeen waa sharmaaka oo raggii hore ahaa odayaashii soo daalay laacibiintii waxaan kaloo rabnaa inaan u yeerno aan guddoonsiino waa qofkii u goolasha badnaa waa qofkii dhaliyey goolashaas oo ku qaaday 17 gool wuxuuna ka tirsan yahay kooxda FC Boosaaso koobkii rabnaa waa socdo Baaris waxaa la yidhahdaa magaciisa Cumar Askar ku abaalmarinaynaa albiitarkii oo waxa uu isaguna xakam ka ahaa goolashaas la soo tiriyey maasha Allah bismillah ar-rahmaan ar-rahiim waa abaalmarin qaaliya iyaduna waa tababarihii ama coachkii ugu wanaagsanaa intuu koobku socday dhanka abaabulka iyo isku dabridka dhalinyarada ee kooxdiisa aan ku aragnay wuxuuna ka tirsanaa kooxda FC Wadani waxaa la yidhahdaa magaciisa Wadani Ibrahim waxaan ku abaalmarinaynaa ninkaan odaga barre insha Allah عبد الله على عبد الله حاجة هلكا oo waxa weeye akhyaarta ahayd oo nimankii la baxay waayo arag oo fikradooda aad u dheertahay oo xirfadlayaala ma sha Allah oo ninkaan ka mid yahay oo ninkaasi ka mid yahay gruubka halkaan u fadhido ma sha Allah oo ayagu mutaysay boortiyerigii ugu fiicnaa ma sha Allah oran uu xaadir u ahaa suuq koorsho u qabanaya ma sha Allah waa si professional waxaan rabaa inaan u yeero kabtankii kooxda waayo arag iyo Cali Ciise iyo Sugulle oo waxa weeye difaaci la holin waayo ninkii barraa meel iska saaray waxa weeye balanna ku qaaday Cabdiqani Boos iyo ragii hore inuu meel saaro marka Sugulle iyo waxaan u yeerayaa ninkii kale Cali Ciise hal mar noo soo istaaga si wada jir أبشر أبوك ما تشوفين ناس بتفكروا كم كيلو دي بعد